waa hagaaga daawadayaal idinlaantiinba meel walba dunida ka joogtaan si walba markaasi ay noo daawanaysaan waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka markaasi aad nagala socotaan bogga YouTube-kan ku leenahay Mambile Tube. Mambile Tube ayaa alab waxaad uga barateen warbixino markaasi kala duwan haddii ahaan lahayd wararkii ugu dambeeyay gudaha iyo sidoo kale caalamka waxa ka taagan dhanka kubadda cagta waxyaaba markaasi ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee ka qoran wargeysyada kala duwan ee ka soo baxa Europe iyo sidoo kale wararka xanta intaba waxaad uga bogan doontaan bogga YouTube-kan ku leenahay Mambile Tube. waxaan jeclahay bal in aan soo qabto warbixin markaasi aad u xiiso badan ciyaar markaasi aad u xiiso badan oo dhex martay dalalka kale ama xulka England iyo sidoo kale xulka Croatia ayaa soo dhamaatay. xulka qaranka England ayaa u soo gudbay afar-dhamaadka koobka la yiraahdo UEFA Nation League kadib guul ay markaasi ka gaareen dhigooda Croatia. qaranka lagu naanayso daawadayaal saddexda libaax ayaa guul soo laabasho ah ka gaaray dhigiisa Croatia tartanka horyaalka qaramada Yurub markii ay ciyaartu ku soo dhamaatay 2-1 oo ay markaasi ku badisay xulka England. kulankan ayaa saan wada ognahay daawadayaal qaybta hore ayaa waxa uu ku soo idlaaday ever oo wax gool ah markaasi laskama dhalinin balse qaybta dambe ee isku soo laabtay waa 4-15 daqiiqo dambe ayaa xulka martida ah ee Croatia ayaa hoggaanka dheesha markaasi la wareegay daqiiqadii 57 ciyaar markaasi aad u xiiso badneed oo labada kooxood dhexmartay waxaana goolka u dhaliyay laacibkooda lagu magacaabo Kramaric. laakiin goolka waxa England u barbareeyay waa goolka koowaad ciyaaraanka u ciyaara kooxda Manchester United waa shaadiinta cascas Jesse Lingard waxaana goolka labaad oo markaasi yimaaday daqiiqadii 85 oo waxa dhaliyay ciyaaraanka weerarka uga ciyaara xulka England una ciyaara kooxda Tottenham Hotspur waa Harry Kane. guusha ay gaartay xulka England ama kooxda markaasi lagu naanayso saddexda libaax ayaa ka dhigan in ay u gudubtay wareega afar-dhamaadka tartanka oo la ciyaari doono bisha June waa bisha 6 sanadka fooda lagu soo haya hadduu alla raali ka noqdo waa 2019 ayaana markaasi uu si rasmi ah loo furi doonaa. waa tay warbixintaasi ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna oo ku saabsaneed xulka qaranka England oo u gudbay wareega afar-dhamaadka koobka UEFA Nation League oo ay markaasi ka badiyeen xulka Croatia. daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashada la socodka iyo sidoo kale sida wanaagsan markaasi aad ugu xirantihiin channelka Mambile Tube. dhammaan daawadayaasha ku xiran halkan waxay idin leeyahay waad ku mahadsantihiin daawashada. asxaabta inagu cusubna waxaan markaasi aan ka codsanayna si naxariis leh inaad markaasi like share comment iyo subscribe intaba aad markaasi inoo saartaan sidoo kalena gambaleelka inaad daartaan oo sida aan markaasi muuqaalada aan soo dhigno ay si toos ah markaasi inagu soo gaaraan oo aad noqoto daawadaha ugu hore ee marka aan soo dhigno muuqaal si fudud markaasi ku daawan doono. dhammaantiin waad ku mahadsantihiin mar koowaad mar labaad iyo sidoo kale mar saddexaad waana ku mahadsantihiin sidaad ugu taxantihiin channelka Mambile Tube.